كني enable migrations بس استعمالها waad soo copy garaynaysaa darabti copy baad leedahay ka bacdina halkanaad paste ku dhahaysaa waa fududahay calaamadda eeda baad ka tiraysaa inkastoon copyga aanad jeclayn iska dhaafa copyga khalad baa laga inaad samaysaa ani raaca marka waxaad dhahaysaa enable dash migrations baad leedahay enable migrations sidaa u qor enter dhe markaa wax yar buu shaqaynhayaa waad sugaysaa marka cabaar sugtid waa inuu kuu soo saaro screenkan fiiri halkan fiiri file baa soo fadhiisan doona la yidhaahdo migrations waa kan migrations markuu sidan kugu soo baxo configuration automatic migration enable true false markuu saa kugu soo baxo macnaheedu waxaa weeye codekii u horreeyay waa kuu shaqeeyey codekii labaad baa ku xigay waxaad leedahay add dash migration hadda s lama socoto kii hore s baa la socotay la soco hadda kan laakiin s lama socoto waad ka durgaysaa waxaad furaysaa quotation waxaad leedahay arday migration baad ku qoraysaa waad ku xidhaysaa labadaas calaamad waxaad dhahaysaa marka enter waan sugayaa marka halkan ayadana fiiri wax kale haddana soo geli doono waa kan file kaloo la yidhaahdo arday migration baa soo galay okay intaa marka aragtid waxaa weeye macnaheedu way shaqaynaysaa si fiican bay u shaqaynaysaa ka bacdi waxaad leedahay update codekii u dambeeyey weeye update database baad leedahay update database intaa markaad qortid waxaad leedahay enter waad sugaysaa cafwan waan khalday update dash data base waxaan ka tegay eeda baan ka tegay halkaas baan ka tegay raalli hada database enter baan leeyahay okay wuxuu leeyahay waa sug uu sameynayaa dhag running wuu dhamaaday succeeded meesha haddaa aragtid running succeed method haddaa aragtid macnaha waxaa uga dhamaatay saan ku ogaaday inay dhamaatay waxaan ku noqon hayaa databasekeygii halkan waan ku dhufan hayaa maraan ku dhufto markuu soo baxo wal waa xaqiijin hayaa tablekii ardayda magaciisa aan u bixiyay inuu ii sameeyey in kale aan xaqiijin hayaa connect baad leedahay haddii hadduu kuu furan yahayna waa khayr haddii kalena wakaas waxaan leeyahay databases ardayda database waan ku dhufanaya calaamadda ka horeysa tableladaan kusii dhufanhayaa hoos aad ma aragtaa ardayda waa ii samaysmatay haddaan ku dhufto ardayda columnyadii aan fiiriyo wakaas id first name last name age gender date of birth masha allah waa ii samaysmay kan marka ha ii furaado ha ii furaanaya waxaan ku noqonayaa waraaqdii marka enable migration waan sameynay add migration ardayda migration waan sameynay update waan sameynay number 7 right click controller folder kadibna dooro entity framework controller una bixi ardayda controller marka controller cusub oo marka tablekeeni ku xidhan baan hadda sameynaynaa okay projectkii waan ku noqonaynaa kuwan hadday kuu furan yihiin waa iska xidhaysaa hal baad u xidhaysaa kaa iska xidh kana iska xidh calaamadan sidaa kuu noqoto xaggan soo aad marka control folderkii waa kan right click baad leedahay waxaad leedahay add waxaad leedahay controller oo midka u horeeya ka bacdi optionna badan ba meeshan kuu yaala ka saddexaad baad dooranaysaa markasta ka saddexaad MVC5 controller with views using entity framework kaas way midkan ka hadlayno add ayaan leenahay wuxuu ku leeyahay magac u bixi classkii wuxuu ku leeyahay classkee wey classka waxaad ku qoraysaa ardayda ilaan waad samaysay waa inuu kusoo baxo ardayda demo models waa inuu kusoo baxo banaankaad ku dhufanaysaa suu aad uga baxid ka bacdi wuxuu ku leeyahay dooro databaseka tableka ku qaabilsan databaseka ardayda iyo databaseka u dhexeeya waxaad leedahay waa kan dooro okay waa db contactsigii ka bacdi halkan magaca asagaaba kuu doorayba mar hore fiiri ardays isaga kuu doora marka waxaad leedahay aniga bedel ardayda ardayda controllerka taabanaya controllerka lama taabto inta ka horeysa baad bedelaysaa marka waxay noqonaysaa ardayda control spacena ma laha ka bacdi waxa kaloo dhan waad sidiisaad u daynaysaa waxaad leedahay marka add uu shaqaynhayaa okay waan sugahayaa okay wuu soo baxay ardayda controller hadda xaggan fiiri marka hore accounting iyo waxaan haystay home iyo manage hadda ardayda soo fadhiisatay okay database-kii connectionkii waa ka hore uu la xiriirhayay model classka indexkii waa kan detailskii waa kan codekii oo dhan waa kan
kuwa insha allah waxaan ka hadli doonaa isbuucan baan hal baran doonaa waxba ha ka walwalin hadda inaad samayn taqaano control baa muhiimaddu yahay ka bacdi waad iska xidhaysaa saaxiibka uma baahnin waad iska xidhaysaa markaa iska xidhid aan ku noqdo waraaqdeedii barakaysnayd number 7 waan sameyn number 8 add share folderka ku jira viewga kadibna fur layout.cs html-ka fileka la yidhaahdo aad oo fur haye projectii waan aadahayaa waxaan xaggan hoosaan u yar socon hayaa markaan hore usoo aan kan iska yar gaabiyo haddiinan arkin hadday sidan kaaga furfurmaan oo aad rabtid inaad foolashan xidhid badhankaas yarka ahee collapse all ku dhufo saas u xidhmaya ka bacdina expand dheh okay viewga waa ka marka viewgan ku dhufan hayaa waxaan tegayaa arad shared siduu ii sheegay layout wakaas waan furayaa layout markaan layout furo hoos ayaan u yar socon hayaa lineka 26aad ka u dambeeyaan copy ku sameynayaa kaasaan copy ku sameynhayaa control C baan leeyahay banaankaan ka istaagayaa enter baan leeyahay control V ayaan leeyahay so enter ii noqdo halkan waxaan ku qorayaa ardayda okay ardayda halkan waxaan ku qorayaa index halkan waxaan ku qorayaa ardayda oo controlkii magaciisa ardayda kan waa magacii badhanka kan waa indexkii kana waa maxaan ku dhahdaa controlkii waad save garaynaysaa ka bacdina waa iska xidhaysaa waraaqdii aan ku noqdo okay number 6 waan sameynay headerka sectionka ku dar controlkii aad soo samaysay number 9 anaaba kuu sameeyay waa hadda intii aan sameynayay haddaan ku noqdo oo aan tago share folderkii layoutkan ku jira layout share folder ka bacdina aan layoutkan sii furo waa ka markaa headerkii waa kan intana header loo yaqaanaa waa korka kore applicationka header baa la dhahaa wuxuu marka headerka ku dar controlkii ardayda ee soo samaysay marka anaa hadda kuugu daray 10 iyo number 9 iyo number 8 waa isku sameynay number 10 run the program masha Allah waa dhamaysay programka run gare haye aan run gareynaya programka dhamisi wax dhaca markaas insha Allah haddii wax walba aan sameynay waa inoo shaqayn doonaa waa soo baxay meesha koro fiiri headerkii aan ku dareynay weeye ardayda waan ku dhufanayaa ardayda okay waa soo baxay first name last name waa ever hadda waxba kuma jiro waxaan leeyahay create new okay ardayga koowaad Aisha Abdi agekeedu waa 4 genderka waa female okay birth waa 0 waxay dhalatay 209 03 عفوا 2012 13 iska dheh waxaan qorayaa 12 okay Aisha waan ku daray 3 ruux aan ku darayaa Maxamed Weli agekiisa waa 6 genderka waa male 01011 2016 okay waxaan ku darayaa ruux saddexaad renew ana Faadumo Ibrahim waa 30 jir waa female 0101 okay 1987 okay saddexda arday baa ii soo galay hadda database-kii bal aan eego inay table-kii isaga hay ardayda la dhahayay inuu saddexdan record ii save gareeyo aan fiiriyo waxaan ku noqonayaa database-keygii waa kan ardaydii table-ka la yidhaahdo waxaan right click baan leeyahay ka bacdi waxaan leeyahay select top 1000 rows waxaan dooranhayaa ka bacdi markaan doorto wax yar baan sugahayaa waxyar baan sugahayaa
inuu intaa qaato ma ahayn laakiin ma garanayo khadka yar culus baan filayaa intaan sugayna aan ku noqdo applicationkii marka muhiimaddu ugu weyn haddaan waraaqdii ku noqdo waa 10kaa qodob 10kaasi waxaan filayaa inaan si mataqaanaa maqal iyo muuqaal ahba aan idiin tusay project cusub samee database-ka samee web configure connection exchange ku xidh ardayga la samee dan ka bacdi geli db contactsigii enable migrationkii dana samee add migration samee update database dheh control cusub oo la yidhaahdo ardayda control samee share folderka tagoo layoutkii fur ka bacdi markaa furtid header sectionkii ku dar ligii ama listigii ku dar programka rangare waa in yaroo iska fudud oo maaragtay fudud okay dib baan ugu noqday waa soo baxay waa kuwa 3dii arday tablekii bay ii galeen Aisha Cabdi agekeeda 4 female haddii tusaale ahaan aan tirtiro waxaan tusayaa haddaan right click dhaho kan oo aan dhaho edit haddaan dhaho edit ilaan waad edit garayn kartaa tableka wixii ku jiray ee maadaama database ku kaydinayay wixii ku jiray adaa controla oo waxna waad tirtiri kartaa waxna waad ka bedeli kartaa marka waxaan idin xaqiijinayaa uun inaan tan wax ka bedelo age-ka Aisha kale hadda age-keedan waxaan rabaa inaan ka dhigo 8 jir oon 4 kale ku daro ka bacdi website-kii baan ku noqonayaa ka bacdi waxaan leeyahay website-kii refresh marka waa inuu 8 ii soo saaro taa marka waxay ku xaqiijinaysaa in database-kii iyo website-kii ay isla hadlayaan oo controllerkii iyo modelkii shaqadooda ay qabsanayaan iyo UI-gii oo view-gaaba intuu ay shaqadooda mid walba qabsanayo oo view-guna uu wixii tusayo controllerkina uu la hadlayo modelkiina uu database-ka la hadlayo database-kii ay kasoo baxayso dherigii modelka ay keenayso modelka oo dan ay kasoo baxayso controllerkii ardayda ay imaanayso controllerkii ardayda indexka ku jira ay kasii qaadayso dherigii ka bacdi view ay dhigayso viewgii marka uu inagana tusayo marka insha allahu step by step baan u baran doonaa hal biidnillaahi marka waxaan idinka rabaa idinka insha allahu in aad soo samaysaan hadda uu iisoo baxay 8 baan ka dhigay Aisho da'deeda ka bacdi banaankan aan ka imid markaan ka imid waan iska xidhay isaga automatically save gareyn hayaan waan iska close gareey kana waan ka bogay ka bacdi projectii ku noqo afwan kan ku noqo refresh baan leeyahay fiiri Aisho marka 8 in noqdo waayo kaas uba noqday saadan u xidhay waxa uu noqday Aisho 8 waa real time inaha adoon xataa refresh dhan buu noqonayaa saas uu database ugu xidhay marka insha Allah ta'ala hadda waxaan idinka rabaa homework inaad samaysaan 10kan qodob baad isticmaalaysaa samee ii sheegay project cusub oo la yiraahdo macallin demo meesha ardayga ma macallin ku bedelaysaa macallin demo SQL kaaga tag database ku jiro waxaad samaysaa macallin database web configure tag oo waxaad ku dirtaa ciwaankii database-ka aad samaysay macallin database waxaad tagtaa model class-ka waxaad samaysaa macallin class ka bacdi macallin class-kii waxaad ku dartaa db contactsiga oo u bixi macallimiinta ama macallinka u bixi oo marka si uu kugu sameeyo table kadib imow adigoo isticmaalaya screen-kii isaga ahaa ee halkan ku yaalay tools NuGet package console adoo isticmaalaya project-ga ran garanaya ayaa socda raalli halkaa hoose adoo isticmaalaya halkan hoose marka waxaad samaysaa enable migrations as ugu dambayso add migration ardayda migration ma u bixinaysaa meesha kan uu macallin migration ma u bixinaysaa afwan macallin migration ma u bixinaysaa update database right click controller ka right click dhahaysaa ka bacdina waxaad samaynaysaa controller cusub oo la yiraahdo macallin controller ka bacdi share folder ka tagaysaa layout-ka ku jira filekaas ka bacdi ku dar headerkiisa controllerkii macallin controller aad samaysay marka intaad samaysid run the program shaqaynaya oo aad dhowr macallin ku dartay ayaan kaa rabaa insha allahu tacaala wabillahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu